meeshaan dadka caqligooda iyo indhahooda iyo ogaalkooda ahaydoo dhan halkaanay soo istaageen wixii meeshaan ay mudnayd maanta in laga yiraana waa ka yiraahdeen aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maalmo badan oo 27 December oo kala ah yaa soo martay beledkan iyo dadkan iyo dalkanba laakiin maanta sida dadka ay uga react gareynayaan ay u fahmayaan oo ay ugu taagan yihiin umaan soo marin marka waxbaan soo baranay dulqaadkeeni dayuusnimo ma ahayn wax kasta oo qof bina aadan ah oo ka caroodo oo qoray ka qaato oo ka dagaalamo oo dhiig ku daadiyo ayaa ninka odaga ah caawo dhan magaciisa lagu celcelinayay iyo hor u soo sameeyay 17 December laga soo bilaabo sida hadda xildhibaan fiqi xusayay ee maxaan ku raaa guriga iyo xarunta xisbiga wadajir mudan Cabdiraxmaan Shukr wiilashii ilaalada ka ahay si nabad ayuu gurigaas u joogo ilaalinaya loogu tagay ayagoo filimba xabadda lagala dul dhacay haday tahay madaxweynayaashii oo masafri kartiin leeyahay airport laga soo celiyay haday tahay maalin kale oo diyaaraddu hawada ku jirto ma degi kartid la yiri annagoo wada saaran dhamaanteen haday tahay maxaan ku iraadaayo soo wad oo maalin walba meel ka soo bilow haday tahay waxay ahayday wax dadku ay inta ka caroodaan ay ka dagaalami kareen laakiin inta rajana waa qabeen dadku oo waxay islahaan bariya maanta ka fiican dulqaadna waa qabeen oo ruuxan ama hadhow faraaka dhibka hadda aan ka caroonayna mid ka weyn amuu yimaada maxamed cabdullaahi farmaajo wax u haray markaan ma laha inuu asagu istoogta u hartay bis wax kale oo u haray oo aniga hadda aan garanayo oo asagu inuu dagaal isku qaado aan ahayn maba jirtaba marka dadkii caawa halkan ka hadlayay odagu meesha soo baneeyo isagay u gargaarin inta aanu asaga istooganin meesha soo baneeyo haday yiraahdeen asagay u gargaareen ay u naseexeen aqli badan iyo waana fiican ay siiyeen marka taasi intii meeshan laga yiri ee dadkii muhiimka ay ka dhaheen oo dham ayaan la qabaa waxaan rabaa kaliya inaan u sheego doorashada maanta taagan la isku haysto mid kale fariin propagandada iyo cayayaanka baraha bulshada ee aan soo baranay wixii 5 sano la soo dhaafay ka shaqeynayeen warka bariyahan ay wadwadaan oo midowgii murashaxiinta kala jaban iyo kan ay ma jiro wax ka jira ma jiraan salaam buuxdo ayaan ka wadnaa in badan oo kamida dalka dibadiisa jiraan inta dalka gudihiisa joogta labadii oday oo noogu waaweynaana shaqay noogu maqan yihiin waana idin soo wada salaamayeen wax qaybsan oo kala tagsan ma jiraan qadiyada afgambigii 27 December midowga murashaxiinta kuma qalka qaybsana iskuma khilaafsana waa isla ogol yihiin dad bini aadan oo meel isugu yimiday aniga saan igula roonta isdhihi karaan laakiin waxa mabda oo asaaska lagu ma kala duwan oo dalkan doorasho xor iyo xalaan ay ka dhacda waa ka midaysanahay afgambi inaan diidno waa ka midaysanahay dictatoriyad in dalkan dib loogu celiyo laga dhiso inaan diidno waa ka midaysanahay marka akhyaartaas salaantaas ka wadna annagana wakiilka marar badan ayaguba meesha caawa howlaha caawa ay noogu maqan yihiin sida ay wakiilka nooga yihiin taas waxaan rabaa dadka inta meesha fadhiday iyo inta idaacadaha ka dhageysanaysa inay ogaadaan waanaad arki doontaan maalmaha soo socdana haddii alla yiraahdo waxaa soo haray doorasho xor iyo xalaal ah afkeenu ku batay doorasho xor iyo xalaal waa maxay qof iyo cod ma joogno dimuqraadiyadeena wax badan ka dhiman fursado badan oo qurqurxoon oo maxaan ku raad dawladnimada xoojinayd ama sharciyada xoojinayd waa naga dhiman yihiin laakiin waxaan rabno waa maxay mar walba waa ku celiyaa wixii lagu heshiiyo in lagu dhaqmaan rabnaa horta haddii waxaas lagu heshiiyay ay xumaadaan war wixii aan ku heshiino waa nagu xumaadeen ilaa waxaan ku heshiinay aayado quraan oo munazzala ma ahayn ورأيي هذا ورأيي أن كل شيء نوانوش قيلا يا أما وحي عن ربنا كمان سيلنا إنتان نرى أو نسكسر نقولنا أو أن بدلنا إن مال أنتو كيستاج أنا بدل أنا ديد أنا يلا ويراد معقول معه دل كان أنت مالها قاركيسي عقبتها قاركيسو كجرو وكبحيو وحنا دهني 4.5
aan isticmaalno habka qabaliga aan isticmaalno kalsoonida si aan isugu soo celinno dowladnimo la wada leeyahay dareen inaan wada leenahay si uu u jiro si aanan isugu takrifalin oo reer hebel iyo reer hebel dalkii saan yeelay anagoo reer hebel meel hebel qabsanayna aanan loo dhihin ee miisaankaas la isbarbar dhigo ayaa loo keenay baryihii la jiranaay in lagu soo bogsado inaan ka gudubno way tahay inay nagu daahda waa jirtaa inay cilado badan leedahay waa jirtaa laakiin waa ku heshiinay meesha aan uga gudbaynay iyo waxa aan uga gudbaynana iskuma diidan waa isku raacsannahay bas waa gaari laanahay duruufo jira awgood xildhibaanka golaha shacabka baarlamaanku laba aqal oo ka koobmaa aqalka sare waxaa la yidhi wuxuu matalaa maamulada dowlad goboleedyadu matalaa markii la soo dooranayana cillado badanaa ka jiray laakiin waxaa looga aamusay dowlad goboleedow matalaa maamulow matalaa laakiin 275tan maxay ku qaybsan tahay 4.5 yay matalaan qabaa'ilka Soomaaliyeed shantan beelood oo Soomaalida ay matashaan maxaa la rabaa marka xor xildhibaankaasi goormo xor iyo xalaal yahay wuxuu xor iyo xalaal yahay cali iyo caasho oo soo tartamay oo reerkoodii ku soo dhex tartamay oo kursiga reerkooda tartanka ay ku soo tartameen ku helay oo og inay reerka matalaan ayaa laga rabaa inay golaha shacabka yimaadaan laakiin wiil ama gabar la leeyahay oo nin leeyahay ma adigaa soo bixi lahaayoo reerkaaga ka soo bixi lahaa anaa ku soo saaree anaa ku leh reerkaaga kuma laha leanna adiga reerkaaga kuma yeeli lahayn haddaad dhex istaagi lahayd reerka kuma soo dooro lahayn laakiin anaa ku soo saaray sidaas daraaddeed anaa ku leh baarlamaanka dadka noocaas ay imaanayaan dowladnimo ku dhismi mee dimuqraadiyad ku imaan mee dowladnimo nagama raacayso aniga iyo walaalahay midowga murashaxiinta qaarkood waa laga yaabaa inay xildhibaanimo ma rabo maxaan rabaa xildhibaan noocaasa oo inuu reerkiisa matalo oo kursiga reerkiisa uu ka soo qaatay rabaa inaan iraa cod isii ama aniga ha siiyo ama cali ha siiyo ama jaamac ha siiyo ama farmaajo hadda uu xil ka dhamaado ha siiye asoo xor oo qofku la qurxoonaada ra'yigiisa taladiisa iyo wixiisa ama qaraabanimaha ku raaco ama ra'yiga ku raaci karo laakiin nin la leeyahay oo la leeyahay anaa ku leh inta ka bax fadhiiso xag ka bax hebel ma arki kartid hebelna ma la hadli kartid hebelna taleefanka ma qaban kartid baarlamaanka noocaas dowladnimo noo keeni maayo yaanan waqti la isaga dhumin rabitaanku dadka waa indha tiraa waa ninkii ummadda Soomaaliyeed dhan ay muxuu ahay cimaamada saaratay oo odaga ka dhigatay waxa uu maxaan ku raada habeenkii ugu guureynayo darbiyada wiilasha inta u saar uu leeyahay hebel la soo qabtay hebel la dilo horena uu soo yiri damaca dadka oo walaalkay Cabdiraxmaan Abdishakuur meeshan ka sheegay oo dulinimada iyo ahaanada u qaadanayo kursiyaan rabaa qofkaasi waa daciif maantana kursiga sidaas uu ku rabaa dadnimana ma lahan oo birimigu kursiga soo qaatana ninkaas abaal ugu leeyahay kursi soo sidii maaye mar uma kursiga ma soo qaadan karaa kadib ana aqaan waxaan dhahay ana aqaan dadkaas yaan talana loogu dhiibin 2016 maya 17 horaanteeda bishii January yaan dadka Soomaaliyeed la hadlay anigoo madaxweyne ah waxaan aad iyo aad war dadka talada loo dhiibaya ha laga fiirsado talada xafiiska madaxweynaha bas ma ahan reer quracow iyo reer qansaxow midka aad xildhibaanka u dhiibanaysaan laftiina ka fiirsada wiilka iyo gabadha aad xildhibaannimada soo siinaysaan ka fiirsada meel fiican iyo ra'yi fiican iyo talo fiican soo idinku matalo wiilkaas hadduu wiil xun noqdo ama gabadhaasi ay gabar xun noqoto yay ahayd waa reer hebel wax dhintay waa naga dhaafaa la leeyahay anna ninkaasaad soo cimaamada saarateen reer hebel haddaad tihiinu mar walba mas'uul waaye mas'uuliyad ummadeed mustawa kastaa joogto qofka lagu aaminayo halla fi gadaal ha loo aqriyo qof ma hadduu dhashay maalinta kursiga la siinayo qofku ma soo dhashay qof soo jiray
soddon sano afartan sano konton sano qaarkood waa yeella waay noloshoodu maxay soo samay jireen maxay ahaayeen gadaal ha loogu noqdo ha la fiiriyo niman aabbo fiican soo noqon gabaran hooyo fiican soo noqon mas'uuliyad aan meel ka soo qaadin dad aan weligood ummaddan waxa dhibaaya aanay dhibin oo boorsidiis u xiran tahay muxuu ahay taygiisana u dhuuqsan yahay oo aan la ogeyn meeshuu ka yimid wuxuu ku ahaan jiray aan la garanayn yaan muxuu ahay lagu lugo'in aad iyo aad dadka alla fiiriyo gadaal loo fiiriyo gadaal loo fiiriyo dadka waa qodob madaxtinimada iyo haybadda iyo sharafta dadku waa jecel yihiin laakiin walaalahay waxaan rabaa inaan idiin sheego in badan iyo meelo badan aan ka sheegay aniga subax 8 February 2017 subaxeedii anoo madaxweynaha oo maxaan ku raahdaa libisanaan guriga ka soo baxay todobadii fiidnimana waxaan gurigay u noqday anoon madaxweyne ahayn wax iga halaabay nama jirin habeenkiina waa seexday waa hurday subaxdeena dadka xafiiska shaqeynaya inta isugu yeeraa ila 7 maalmood oo muddo qabtiin xil wareejinta diyaariya maalintii xil wareejintii oo 16kii muxuu ahay in waa la ogaay February meesha aan ku wareejinay iyo say meesha uga soo dhaxbaxan wax maanta anoon marka banaanka jooga hadda caawa halka hotel Afrika taagan haddii doorasho macquul ah oo sax oo la aqbali karo inta la qabto madaxweyne ma ahid la yiraahdo haddee waxa la iga fili kara maxay tahay intaan farxo qoslo iraa waa maasantiin culaysa iga haray oon hore u sii socdo maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay hadda ka horna waa iriye nololaa jirto villa Soomaaliya ka bacdi dhima maysid villa Soomaaliya haddaa ka soo baxday dhima maysid maalintii ilaahay kugu talagalaa dhimay laakiin adoo karaamo leh oo sharaf leh oo madaxa uu kor yahay ka soo bax meesha adoo baqanayo cararayo ha ka soo bixin adoo lagu ilaalinayo iqariya dhahayaan ha ka soo bixin ee adoo sharaf leh oo karaamo leh ka soo bax waxaa soo haray wiilasha ciidamada waa laga hadlay shalay 27 February 27 December ma xilka qabteen nimanka taliyaasha ciidamada ah soomahayn 17 December waa haayeen 19 maxaan ku raadaay February waa haayeen 24 25 maxaan ku raadaay April waa haayeen haddana 27 December waa haayeen xala dhalay miya intaas dhacdoon sheegay dadaa ku dhintay kuwana waa ku barakaceen kuwana waa lagu ihaanay waa lagu dulmiyay waa lagu muxuu karaamadooda meel looga dhacay taliyayaasha wixii hore dhanba ka soo tag 27kii maxaan ku raahday December wixii dhacay ciidanay ahaayeen maxaan ku raahday gabdho iyo wiilal socdo xaragoonaya ma ahayn horta bal taas waxa ka yiraahdaan ciidankii ka dambeeyay la iska warsado ka bacdi ciidanku ha ka baxaan macnaheedu waa maxay maxamed cabdullaahi farmaajo qofkii diidan shaqada joojiyo oo diidmada uu ku jira joojiyo way ma aha siyaasadda ka baxa ma waa qodob booliiska taliyiisa maanta dhahaya hal joojiyo shalay xildhibaan fiqi waa kana waa jooga marqaati nool yay ahaayeen kuwii jidka taagnaayo dadka in ilaamiga soo istaagaan u diidayo baabuurta booliiska Soomaaliyeed ayagoo wata kala raacdeynayay ahaayeen ayagoo libisan oo qoryihi dawladda wata ku raacday yay ahaayeen see maanta noo dhahaa mar waa arkay waa maqlaay raadiyaasha ciidanka booliiska laga sheegayo waxa socday dhaqdhaqaaqyada socdo dhan kama hadlin dhaxdhaxaad maanta han noqdaan ka baxaan siyaasadda waxa oo dhaqanka ugu xun ee 5 sano la soo dhaafay dalkan ka jira waa maxay waxaan idin leenahay maqla laakiin waxaan sameeynaynaa arkinina annaguna waa diidnay waa soo jeednaa waxaan leenahay waxa sameeynaysiin aan arkaynaa fiirinaynaa waxa noo sheegaysiin ma maqlayno indho nuur badan aan qabnaa iyo dhaga aan wax badan maqlaynina waxna tusiya
indhaha wax nagu tusaa qofka dhagoolka waa la tusaa maahanoo waxa saan u soo dhegaysanayna warkiina waa na geli waayey dhagahayna waa ka owdan yihiin indhaan leenahay na tusa waxaad sheegaysaan na tusaan leenahay idinma dhegaysanayno khudbo fiican oo idaacad laga jeedayna dhegaysanayn awaamir xagga laga bixi inta laga bixi la leeyahay aan dhegaysanayn waxa aad samaynaysiina fiirinaynaa waxaan arkaynaa kaasa idin kula dhaqmaynaa meeshaas waa meel fiican waliba in la sii dhaqmaa wali aad diyaar loo yahay laakiin waxa samaynaysaan maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa lagula dhaqmayaa wanaagiisa iyo sharaftiisa iyo karaamo loogu haynayaa waa soo baxiyey nabaday soomaaliya tashada ha yiraaho anigu waa tartamaya xaggan taagana ha yiraahdo intaba xor u yahay waxaa soo haray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble nin aad iyo aad u niyadsan waaye niyad samaantiisa waxbay hore nooga soo hadlaysay wax dambe inay naga hadlaysa ma rabno haddana kalsooni badan qabnaa waa aragnay niyad samaantiisu haddaan aragnay inuu u dhinto inuu diyaar u yahay baabuurkaanaan kugu qaadaynaa ra'iisul wasaare beebahaanaan aan ku saaraynaa ra'iisul wasaare war maxaa beebaha iyo baabuurka la ii saaraa intaan ka baxa aniga xafiiskayga waa soo lugay waa soo baxiyey waa ku mahadsan yahay waana ku garab taagannahay mana ka gabbanayno dowladnimada iyo dimuqraadiyadda annaga dadka gobolka banaadir degan bulshada gobolka banaadir degan dowladnimada macno badanay ugu fadhidaa hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya oo dhan bay ka koobmaan soo maaha 229 xildhibaan soomaaliya oo dhan bay isugu jiraan soo maaha qolob u gaara ma jirto waa isku miisaaman yihiin xataa looma kala badno soo maaha golaha wasiiradu waa sida soo maaha taliyaasha ciidamadu waa sida garsoorka iyo maxkamaduhu waa sida diblomaasiyiinta iyo diblomaasiyaddu waa sida meel aan muqdisho ahayn oo bil laga siimaa ogtihiin meel aan muqdisho iyo dadka muqdisho ku nool lacagta ay bixiyaan oo guriga ay degan yihiin ay ka bixiyaan oo maxaan ku raadaay baabuurka ay raacayaan ay ka bixiyaan oo liitarka shidaalka ay gadanayaan ay ka bixiyaan oo rubaca sokorta ah hooyada jidka maxaan ku raadaay ku karis shaahiga ilmaha masaakiinta ku biisho ay ka bixiso sow maaha waxaasoo dhan madaxweyne ka soo bilaaw ilaa muxuu ahaa nadiifiyaha ugu hooseeya xafiiska joogo ilaa diblomaasiga mustawa ugu hooseeya meel hebel jiro sow maaha haddii cid kale oo wax ku bixisa caalamka kaalmada uuna siiy waa gooni soomaali kaloo lacag ku bixisa dadka gobolka banaadir degan baardanaa culaysaa loo soo diraa waxaasoo dhan wada culays waayo waa aqbaleen diyaaray u yihiin qaraxyaa u dheer haddana ihaanadan kalaa u sii dheer waxaasoo dhan dowladnimada si ulahayd waana la og yahay dowladnimadu meeshay ku burburtana meeshaanay ahayd dadka beesada iyo dhaqaalaha iyo waxa inay dhiibaan dhib kuma qabaan karaamadooda inay dhiibaanay dhib ku qabaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kooxdiisana dadka karaamadoodii taabteen meesha ay ku liitaan kulligood meeshaas waaye qofka bini aadamka karaamadiisa lama taabto dherega lagulama diriro iyo maxaan ku raadaayey kista yartaa oo ku jirto lagulama diriro dheregii dad kula dirireen karaamadoodii dileen sharaftoodii meel uga dhaceen miday ahaanayaan miday raacdeeyaan miday markaas haddana been iyo qab iyo qaranimaan soo celinay iyo bababa aan waxba ka waa wax aan leeyahay waa dhagahan inta ka bateen aan maqli weynay ma maqlayno inaad dadka ahaaneeyo haysiin oo duleeyo haysiin oo dhaqaalaha iyo dherega aad kula dirirsan tihiin oo shaatigooda cad inuu iyo madaxooda inuu kor ahaado aad kula dirirsan tihiin yaan u jeednaahan arkaynaa retorigan maxaan ku raadaay qaarnimada inta ka dhacnay kan inta ka dhacnay aan qabo ciidamadan dhisnay ku leeyihiin mitr maxaa waa ciidan dhisan oo xoog leh mushkiladii loo dhisay inay wax ka qabtaan soo maaha war 5 sano la soo dhaafay yaa wax ka qabtay wiilasheen waa dhintaan maalin kasta waana dhiig baxaan laakiin hoggaan xumo iyo maamul xumo iyo wixii loo oy lahaayeen ay u dhaarteen u taagnaayeen aadayeen warax kale loo adeeyo war ciidamada inta laga daabulo halkan gada la geeyay gada ma muxuu ahay ma dhul amxaar degantaa mise dhul cadow kale uu degan yahay waay shabaabka degan lama diriraan dadka inay caburiyaan u joog inta ka daabul xagga geey kuwa kale Soomaali ah ku dil inta ka qaad xagga geey xamar jidkiisu ku soo bax war ilaahay yaqaan
waar annaga bas waaye dadkaan fartaa gaarta markaan ka bacdiye yaan qarax laga sugin inay qarxaan yaan laga sugin mugay qarxaan qarxi maray qarxeen 30 sano nagu qaadatay mar kale yaan lagu qarxinin dadkaan yaanay qarxin dadkaan walaal haddaati inta ka hadlayay oo infrastructure ka la dhisay inta jidka laga qaaday hobyaha la geey kan dhahay adeero gacaliyo 5 sano ka hor aan yiri guryahan dhisaya daaraha qarxan dhisaya inta ka dhacaya xagan ka dhacaya waxba kama jiraan dadkan aan isku hayna bal horta koow falaarti ishu ku tiilay salka ku tiila waaye infrastructure ka dhismihiisa iyo adduunyada waan rabnaa waana noo taallaa bal aan salka timida ku taal hanala goorto aan dhulka dhigna war horta siyaasadda aan ka heshiino dawladnimada aan u sal dhigna bal ka bacdiya aan wadana dhisnaa dekadna dhisnaa airborna dhisnaa dadka aan dhisno maxamed siyaad barraa wadooyin badan iyo daara badan iyo wax noo dhisay waxba nooma tarin 30 sano oo aan xor ahayn waxaan dhisaynay 30 bilyan ku baabi'inaa ku burburinay marka inaan derbiye dhisno iyo inaan daara dhisno macna nooma fadhide dadka inaan dhisnaan rabnaa dadka maxaan ka dhisanaa ugu horeyso qalbiga iyo kalsoonidaan ka dhisaynaa aqoontaan ka dhisaynaa caafimaadkaan ka dhisaynaa heshiis inay yihiin is aaminaanay isla noolaadaan oo ay meel wax wada dhigtaan ay isdugaashadaan iswalaashadaan ka dhisaynaa ka bacdi aan jidadka iyo daaraha u iimaanayna hadii aan leeyahay haraba mar kale waa idin mahad celinayaa si gaar waxaan ugu mahad celinayaa golaha bulshada banaadir ee fursadan caawana siiyay waa aad iyo aad u maasiin fursadan oo kale wixii caawa halkan looga baaqay war meel cillaa ka baxayo noqonin banaan bixi isku soo bixidi nabad ku baaqidi dawladnimo nabadaan rabnaa dagaalna ma rabno colaadna ma rabno qaxna ma rabno hay asheegin waxa aan rabnaa si nabad oo waxaan ku tilmaamaynaa oo magaciisa